3. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad nagala socotaan waraysigan soo socda ee haatan aan idin soo gudbin doono ayaa daawadayaal waxaan la yeeshay ambassador cabdiraxiim caabi faarax oo isagu ah nin si weyn loogu yaqaano howlo dhaadheer oo uu ka soo qabtay qaramada midoobay isagoo mar ahaan jiray ambassadorka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay markii dambana noqday muddo 18 sano ku dhow ninka labaad ama jagada labaad ee qaramada midoobay ninka isagu halkaasi hantay ama gaaray cabdiraxiim caabi faarax ayaa maanta waxaan ka waraysan doonaa anoo kula kulmay duleedka Washington DC dalka Mareykanka arrimo ay ka mid yihiin guud ahaan bal sida uu helo wararka dalka Soomaaliya ka jira iyo meelaha uu kala socdo arrimaha Soomaaliya cabdiraxiim caabi faarax marka hore waan ku soo dhaweynayaa marka labaad su'aasheeda ugu horreysay aan ku weydiinay waxa weeye muddo dheer baad ka soo shaqeynaysay United Nationska khibrad fiican baad u leedahay dawladaha adduunka iyo sida ay u shaqeeyaan xilligan imika lagu jiro Soomaaliya horta wararkeeda sidee baad ku heshaa Well, imika, first of all, I retired in 1990. kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii baad howlgab noqotay I've been to Somaliland twice. laba jeer baad tagtay Somaliland I was in charge of a mashruuc mashruuc baad madax ka ahayd for helping people who lost their legs by mines. dadka markaas ilaaxaadkooda beela ee miinooyinka waxaas ku qarxaan And then I went again the last time I went was in the year 2000, where to attend the burial of my brother Abdullah Abi. Okay. And I stayed 6 months in Berbera. Why? So I was able to see what the problems and what progress was being made. Because Somaliland is a new nation, but it has many problems, which is. dhinaca siyaasadda Somaliland waxaan awoodi karayay buu yidhi cabdiraxiim caabi faarax in aan la socdo amaba ogaado dhibaatooyinka jira Somaliland iyo weliba horumarka ay gaadhay waayo buu yidhi Somaliland waa qaran cusub waxaana ay leedahay dhibaatooyinka gudaha iyo kuwa dibadda ee la soo gudboonaada amaba soo food saara dawladaha cusub laakiin waxaasi oo dhan ka hor buu yidhi cabdiraxiim caabi faarax sanadkii 1960 ayaa Somaliland ay la midowday Soomaalida kale midowgaasi oo ahaa mid markaasi lagu degdegay waa sida isagu hadalka u dhigay xillidaasi kadib buu yidhi waxaan noqday mid ka mid ah danjirayaasha waxaan markii hore danjiro aan ka noqday magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia halkaasi oo aan 5 sano joogay dabeetana waxa uu yidhi waxaa lay bedelay magaalada New York ee waddanka Mareykanka aniga oo kadib markaasi ka mid noqday shaqaalaha caalamiga ah ee jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa hawshaydu waxay ahayd buu yidhi la xidhiidhida dad aqoon sare leh waayo aragna ah waxaana ay ii noqotay in aan maalin walba barto wax cusub ama waayo aragnimo hor leh What I was convinced of was that the more knowledge you have, the less you really know. It is not sufficient to say that because that you're sitting in a chair that you know everything. But I've learned sufficient enough to know exactly what is right or what is wrong in international relations. Why? haddaba mar aan weydiiyey cabdiraxiim caabi faarax sida uu arkayay midnimadii Soomaali weyn ee 1960 ayaa waxa uu ku jawaabay cabdiraxiim caabi faarax The union did not appreciate the role that Somaliland could play. It ended up with the with the terrible destruction of the North by planes of their own government.
Now, since independence, since Somaliland declared independence in 1990, 91, after the Borough Conference. markii waqooyigu ay la midoobeen koonfurta Soomaaliya ma ahayn mid farxad gelisa oo ay ku qancaan madaxdii xilligaasina waxa ay markaasi doorka iyo xubinta la siiyay Somaliland kuwa iyagu markaasi u arkay in ay salugsan yihiin Cabdiraxiim Caabi Faarax waxa uu intaasi ku daray in tan iyo markii Somaliland ay go'aansatay in ay Soomaaliya inteeda kale ay ka goodo shirkii magaalada Burco lagu qabtay sanadkii 1991 wararka aan markaasi u yiri si toos ah aan uga heli jirin dawladda aan markaasi ahaa nin ku xidhan oo wararkaasi kala socday dhinaca warbaahinta amaba internetka wuxuu Cabdiraxiim Caabi Faarax intaasi uu raaciyay in maalin walba uu daalacan jiray internetka ha yeeshee waxa uu sheegay in uu markaasi ku dawaqay amaba uu ku wareeray website-yada kan runta sheegaya iyo isagu kan xaqiiqda markaasi ka fog iyadoo website-yadu ay noqdeen kuwa ku salaysan dana gaara haddaba mar aan weydiiyey ambassador Cabdiraxiim Caabi Faarax waa maxay waxa la gudboon reer Somaliland ayaa waxa uu ku jawaabay what we can call a new agenda. First of all, Somaliland has to make sure that whatever it can do for itself, it should do. I have, unfortunately, the country is not being helped along, you know, as other countries in Africa are being helped by the international community, because of one thing of recognition. But there are things which the Somaliland people can do to help themselves. And I think one of the biggest problems in our country is a problem of clanism. Mm-hmm. We are still, because we've not had a good central government, we are still relying mostly upon our clans to help us. Everyone needs protection. But if you don't have a central government which can give you protection in times of need, you have to go to your family. But clanism really is a step towards nationhood. Cabdiraxiim Caabi Faarax waxa uu ku jawaabay Somaliland waa inay qabsataa wax kasta oo ay iyadu qabsan karto nafteedu ee markaasi aanay cid kale ka sugin amaba cid kale aanay ku xidhnaan nasiib darro Somaliland taageero ku filan kama aanay helin caalamka intiisa kale sida dalalka kale ee iyagu markaasi gacan qabadka u baahan oo markaasi iyagu ka hela caalamka intiisa kale gacantaasi waxaan u maleynayaa buu yiri Cabdiraxiim Caabi Faarax in arrinka u weyn ee Somaliland ragaadiyay ee ay la socon lahayd inuu yahay arrinka qabiilka amaba qolqolada waayo uu yiri wali ma jirto dawlad dhexe oo markaasi iyadu gacan siin karaysa dadweynaha ama shacabka ay mas'uul ka tahay taasi ayaan u horseedaysa amaba keenaysa in qofku markaasi uu qoyskiisa ku xidhnaado Cabdiraxiim Caabi Faarax oo aan weydiiyay bal in xilligan ay tahay amaba ay dhowdahay waqtigii ay Somaliland iyo Soomaaliya wada hadallo nabadeed ay u soo wada fadhiisan lahaayeen oo ay markaasi isafgarasho iyo midnaantu ay soo noqon karto Cabdiraxiim waxa uu ka jawaabay in ay dadku yihiin dad is ah hal diin wadaaga hal luqad ku wada hadla isla markaasina ah dad iyagu xoolo dhaqatada amaba dhaqankoodu ku xidhan yahay reer guuraanimo oo isu gudbi kara amaba isu talaabi kara sidaas daraadeed xilligan aragtideedu waxa weeye in ay dadkaasi noqdaan dad jaar wanaagsan oo si wanaagsan u wada dhaqma to be close to each other, to advise each other. But for marrying, I would suggest we need a little more time to put each other to put their house in order first. Thank you very much, Mr. Cabdiraxiim Faarax. Thank you. Okay. kaasina dawadayaal waxa uu ahaa Cabdiraxiim Caabi Faarax oo isagoo ambassador hore ugu soo shaqeeyay qaramada midoobay isagoo mar ahaan jiray safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay markii dambe la soo qabtay jagada labaad ee ugu sareysa qaramada midoobay tan iyo kulankeena dambe dawadayaal waa Cali Cabdi Xaraare oo dhamaantiin baa idinkaga tagay sida iyo nabad geliyo